walaashayna waxaan idinka codsanayaa haddaad u qabtaan in cayda aad caynaysaan aan ku raaxaysanayo wallaahi kuma raaxaysan inaan sheego waa very important. barnaamijkaas wuxuu noqonayaa dadka caytama oo baraha bulshada ka caytama komitiyada cayda aqora ma fiicno run ahaantii in qof bini aadan aad cayd qofka in la caayaa waxay keeni kartaa in qofkii xataa asaga uusan ahayn iska aamino. cayda marka wax ma soo kordhiso waxba ma keento faa'iido ma laha adiga caytamayana sharaf daray ku tahay. baraha bulshada marka lagu jiro dad waxaa jira cayda tirada badan iyo waxyaalaha dhibaatada oo kale ay qofka damage u geystaan run ahaantii qofka markaan ku leeyahay damage u geystaan dad waxaa jira hadda youtuberada ku jira oo dad cadaana oo doodana ahaadaan waxaa jira maryaha dhigay wax kale maahan waa qoraalka dadku ay soo qorayaan kaliya. السلام عليكم أصحاب فاضل قروح وعد السلام ميل كستو أدونك كجوجتين هدي أهورا نولا جوجتنا واكم هسنتها سيدا قروح بدن وانا وريرك كليسيد مر والبا في ديدينا هدي أنا وعصبتها أنا وحان لايها جنالك وجنالك إني هي هكا بقيلين إني هي سبسكرايب تا إيا لايك إيا شير أن كومنتي إن شاء الله نطب موضوع عن كهذا الرمنا وحواي ولالكن قدر مرتهاجي oo yiri walaashay fahiimo waxyaabaha loo soo qoraayo ama komitiyada xun oo loo soo qoraayo oo aniga la iigu heelinayo raali kama ihi fadlan hala joojiyo waana runtiis wuxuu la hadlayaa youtuber badan oo Soomaali ah youtuber badan oo waxa jira oo Soomaali oo qofka si iskaga caaya ama gabadha ha taageeraan ama wiilka ha taageeraan iska caaya qofka mar had reaction ka iyo ko bixinayo wiilka ataagaya horta labada dhinac Ilaahay baa ugu xaqaldan anagu ma xogmi karno maxkamadna ma nihin laakiin walaalkay wuxuu yiri raali kama ihi walaashay komitiyada foosha xun ee loo qoraayo maalin kasta fahiimo oo aniga la iigu heelinayo kullee iyaduna waxaan dareemi karaa inay si raali ka ahayn komitiyadu dadka way dhaawacaan qofka marka walaalka komiti xun u soo qortid waxa ka wanaagsan adoo qofka walaalka wax qeyr badan u soo qortid oo dhahdid walaalow saan kuugu mahaboone iska dhaaf sidaan taaniyan qadar wuxuu dhahay hala wadaagnina sirihiina dadka ama maraha baraha bulshada ku jirtid wallahi waa run oo been ma uusan ku sheegin oo waxa waay waxa dhow mustaqbalkaaga damage garay kara mar adiga dumar aad video aad si qaldan u dirtid bari aday ku damage garay kartaa rag isku ma jiro rag fiican jira rag xun jira dumarkana waxaan leenahay walaalayaal farajignaada oo mar walba is ilaaliya adduunkan waa iska dhib badan yahay baraha bulshada hadda wuxuu noqday wax la isku fadeexeeyo wax la isku caayo wax la isku aflagaadeeyo adduunka sidii hore ma ahan wanaagii uu dhamaaday Soomaaliyeed qadar wuxuu dhaho kale walaashay aniga madaxayga aan loo caayin dad badan oo waxa jira asaga u soo hiiliyay markii ay arinta ka soo hadashay dad aniga laftigeyga waa ka soo hadlay laakiin aanu qafna ma ataagin asagana ma ataagin iyadana ma ataagin laymana soo istaajinayo labadoodana Ilaahay baa u qaldan laakiin dad waxa jira marka aniga fiiriyay wiilka ataagaya ama gabadha ataagaya ataagana ma fiicna sidiisa labadan qafood iyaga wax iska tabanaya Ilaahay baana og wixii jira anaka wixii jirana ma ogin xukunkana Ilaahay baa leh laakiin asaga wuxuu yiri aniga dadka fahiimo aniga madaxayga komitiga qaldan ugu qorayay walaalayaal iska dhaafa adduunku waa laba beri madaxayga ku dhaafa dadka waxaan leeyahay siiba Soomaalida waxaan la hadlayaa dadka inta meel iskaga soo fariistaan dadka bilaa macalaanta iskaga caaya oo youtuberaba u samaystay in dadka aflagaadeeyaan oo maanta oo dhan qof walaalkiisa ku dhagan oo maanta oo dhan qof walaalkiisa sirtiisa faafinayo oo maanta oo dhan adiga waxa laga yaabaa maanta da qof walaalka sirtiisa faafisid beritaada in la faafiyo oo adigana beritaada aad shabaqa ku soo dhacdid marka adduunku waa wareegto adduunku waxaan leenahay waa wareegto waaye adduunkan waxaan leenahay cayda hala joojiyo aflagaadada hala joojiyo
ma youtube-ka waxaan ku iri irsaaqad haddaa si xun uga raasatid maalinta aan qoro waa laguu soo fariisinayaa irsaaqadaas xalaal kuuma noqonayso maanta dhan aa qof walaalka hilibkiisa jaraysid aa qof walaalka uu ku goomaaraysid aa qof walaalka xantiisa raadinaysid aa qof walaalka ceebtiisa raadinaysid aa qof walaalka fideogiisa qaldan soo dhigaysid dad waxaan arkaya xataa wallaahi ee fahiimo sawiradeed qaawan inta soo qaateen fakta hore soo saartay youtube-ka soo saartay ee faktaba indhihii qofka uu ku dhifanayo gabadhii qaawan waxaas waa laga fiican yahay in aa qofkii qaawan waa agal asagoo asturan soo qaado gabadhii asturan soo qaado yacni intaas waxay ugu dalan yihiin halaydin soo raaco halaydin arko in aad fideogii qaawan haysaan si aad views ku heshaan wallaahi adduunkan waxaa la yaabay waxaan kala yaabo kale maanta qof walaalkeena hadduu dhinto oo geeriyoodo meeshii si daacadnimo oo walaaltinimo ku jirto loogu soo taxsiyey lahaa dad waxaa arkaysaa taxsidaas xataa views xayeysiinta u furanaya oo irsaaqad ku raadinaya qof walaalkiisa oo dhintay ayuu irsaaqad ku raadinaya kama ahayn daacad inuu ugu soo taxsiyey waxay ka tahay in sida uu views uga heli lahaa dadka waxaan leenahay ku raasanaya maanta qof walaalkiisa hadduu geeriyoodo lacag ku raasanaya ugu biri inaa adiguna dhimanaysid qof walaalka haddaa si xun u aflagaadaysid ugu biri inaa adduunka ka tagaysid oo fiidiyoyadaada ay kaa dambeeyaan adigoo maantoo dhan qof walaalka ataagaya adigoo maantoo dhan qof walaalka caynaya adigoo maantoo dhan qof walaalka ceebihiisa raadinaya ogow adduunku waa laba beri shalay haddii uu walaalkaa noolaa maanta adigaa noolaaneyn marka waxaan leenahay soomaaliya sidaa isku dhaama taniin hadda waxaaba soo batayba waxyaabo badan qeybta commentiga markaa fiirisid bismillaahi raxmaani raxiim waxaa leedahay dadka qeyrka maxaa u diiday inay wax qeyr la qoraan caay maahane xumaato maahane ataag maahane qadar iyo fahiimo midno anaka naartana nama geynayo jannadana nama geynayaan mid asagana inaa u heelana maahan iyadana inaa u heelana maahan asagana inaa ataagna maahan iyadana inaa ataagna maahan yacni wixii markaas jira ka hadal wuxuu ku qaldan yahay asaga ka hadal waxay iyada ku qaldan tahay ka hadal laakiin inaa asaga reer hebel inaa adeerkay waaye aa ku taageertid maalinta qiyaamo naartana kaa celi maayo jannadana kugu geli maayo ayadana sidoo kale inaa ku taageertid ku taageer gabarnimo wallaahi wuxuu yiri qadar wuxuu yiri gabdhaha youtuberada iyakaa ragga uga badan haddana iyakii cadow isku ah wallaahi waa run waxay cadow iskugu yihiin ma arkaysid gabar taageeraysa ma arkaysid gabar wax u qabanaysa ma arkaysid gabar dhehaysa abaay macaanto hore u soco ma arkaysidba gabdhihii iyo kaleeba waxaan ku yiri iskaga shidan tahaba iyo kaleeba iskaga shidan tahaba oo isku dhegan oo waxaan ku yiri saa aa u maleysaaba in leys tusay oo maanta oo dhan is caynaayo is aflagaadaynayo oo waxaan ku yiri maanta oo dhan iyakii isku karan marka waxaan leenahay gabdhow meeshaan idinkaa ku jira idinkaa ragga uga badan marka waxaan leenahay dumarow idinka istaageera idinka wax isku noqda idinka gacmaha isqabsada idinka haddaa isku dhegtiin goormay adduunyo soconaysa aa qof walaalka amaantoo dhan ku dheganaatid qof walaalka amaantoo dhan aad ataagtid qof walaalka amaantoo dhan aad yacni aad youtube-ka hawada cay usoo marisid qof walaalka amaantoo dhan aad aflagaadaysid waxaas waa laga fiican yahay marka waxaan leenahay asxaabi hadalka idinkusii dheereymaaye bal fiidiyowga qadarna ila dhageysta waxyaabaha uu ka hadlaayo waxyaabo badan uu ka hadlaya runtii ilaahay baana og wax walba laakiin asaga runta wuxuu sheegay wuxuu dhahay gabdhaha waxaan kala digayaa inaad dumarow adinkaa la wadaagnina waxyaabaha qaaska idin ah rag iyo dumar buu la hadlay wuxuu kaloona ka hadlayaa asaga madaxiisa in aan fahiimo loo caayin ama commenti xun loo qorin because commenti xunka waxaa laga yaabaa maskaxdeeda inuu damage gareeyo hadda fahiimo way asturan tahay maanta way dadan tahay maasha allah maanta o dhan haddii youtube-ka laga caynayo oo commenti qaab daran loo qoraayo beri waxaa laga yaabaa dharka inay dhigato walaasheen marka waxaan leenahay walaasheena si wanaagsan aan ula hadalno wanaag ku jiro oo naxariis la hadal naxariis la qofka haddaa u qortid adigana ejara kaaga socda hadal naxariis la haddaa qof walaalka u qortid adigana ejara kaaga socda marka asxaabi waxaan leeyahay hadalku idinku sii badin maaye janaalka soo booqdo insha allah subscribe noo saara janaalkan janaal maahan dadka lagu aflagaadeeyo
janaal ma ahan ceeban lagu soo gudbiyo, janaal ma ahan sawir qaawan lagu soo gudbiyo, janaalna ma ahan qof lagu ataago, qofna loo heeliyo. Janaalkaygu waa janaal qof oo inta lasoo qaato lagu caayana ma ahan. Adduunkana waxaa u necbaa qof walaalkay inaa u caayo, intaa qofka caay lahayd wax u sheeg. Marka waxaan leeyahay haddii aan nagu cusub tahay subscribe dhag nagu soo sii iyo like iyo comment iyo share kana ha naga ilaawin. Wassalaamu calaykum wabarakaatu waraxmatullaahi sidaa iyo nabadgelyo.